gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diriye abaandulaha ciidamada militariga gobolka Togdheer taliyaha booliska gobolka xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo xogayaha gobolka Togdheer oo maanta kormeer ku soo maray qaar kamid ah dugsiyada sare ee magaalada Burco ayaa kulan lagaga hadlayay qabyaalada la qaatay ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Sheekh Bashiir ee magaalada Burco kulankan ayaa lagu gorfeeyay sidii ay ardaydu uga dheeraan lahayd rabshadaha ka dhaca magaalada Burco isla mar ahaantaana loo adeegsan maskaxda ardayda qabyaalada iyo qaralaasaha xambaarsan waxyeelaynaysa nabadda qaranka Soomaaliland waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii kamid ahaa dhacdadii ka dhacday daraad Burco dhacdo fool xumeeyay taageer baatiin kulli energy badan bay ku jira energy-gaas meel walba idin la geli karaa oo kii xumaa iyo kii wanaagsanaa waxba idin sheegi karaa ninka xun ee doonaya inuu naftiina ku soo duulo waxbarashadiina iyo koritaankiina ku soo duulo waan idin kala talinayaa inaan qaadan hadalkiisa inaan u dhagan nuglaan intii halkaa joogtaa wax soo ah nimanka ku bartamaya muxuu ahaa talada dalka halkaa jooga waa u simantii kolkay soo baxaan bay xidhiidhi kursiga inay dhiig ku gaadhaan maaha kursiga inay daayarta mustaqbalkooda ku gaadhaan maaha waxa aan idinka digayaa oo aan idinkula talinayaa inaydaan u dhextaagin nin hal kursi raba man idin sheegay haddaad tii ardayda iskuulka Sheekh Bashiir Sheekh Bashiir ardaydiisu iyaga hormoodu waxa gobolka qaran baynaynan hoos noqon nin dal iyaan idku guurin waxaan furaynaa insha Allah dhawaan xafiiska xiriirka dadweynaha waxa la yiraahdaa laba maroodi artamaan cawska u dhaxeeya burbura cawska u dhaxeeya labadooda ayaa burbura baa madaxda halka ku artamaysa waa maroodiyaal inagu ayayna cawski noqon waxa weeyaan siyaasaddu waa mid jirta waa mid waxa weeyaan lagu loolamo rag bay ka dhaxaysaa waa taageeradu wax jira weeye laakiin si xun oo fawaaxisha yaan leedin adeegsan mustaqbalki dalkaati da'yarki dalkaati shaybu ka iskuulka ka baxay ku jiri ahmiyad iyo himilo ku gaaray waxaan sheegaynaa inaan waxyaalaha dhacaya ee inta arrimaha siyaasadda ee si rabshadii maanta dhawada kala dhacday iyo inay saameeyeen waxbarashadii wax u dhimin amnigiina wax u dhimin ugu dawdaaraya inaad intiinaas gacaysataan amnigana ilaashataan waxbarashadiina ilaashataan mustaqbalkiina ilaashataan kulankan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ku dhaawacmeen qaar kamid ah ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Burco rabshadihii ka dhacay sabtidii aynu ka soo gudubnay magaalada Burco Ali Daar Maxamed Boos TV-ga caalamiga Universal Burco